magaca walaal waa Saciid Maxamed Diiriye weeye Saciid Maaneed xaaladdu oo kale weeye walaal arrinkaas waa jiraa heertii waa bari saakay ayay ciidamadu la wareegeen deegaanka Afurur iyo deegaanka Maraaja 90 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada ganacsiga ee xarunta gobolka Bari halka istana sirasaasin kooban ka bacdi way ka baxsadeen meeshii way ka baydeen way iskaga carareen ciidankuna wuu baacsaday kabacdi ciidamadu waa iskaga soo hareen xagga iyagana wax qasaara oo hadeer jira ma jiro magaaladiina waa nabadgelyo gacanta dawladda Puntland ayay ku jira walaal waayahay dagaal intee saacadood socday baa halkaas idinku dhaxmaray idinka iyo cidii halka ka talinaysa dagaal yar oo kooban baa walaal sirasaasin buurada qodooda ay soo fulfuleen magaalada dhinaca galbeed ka xiga kabacdina markaan magaalada gudaha u soo galnay way ka carareen meeshii walaal magrad maxaa khasaare ka dhashay dagaalkaasi khasaare xagga iyaga ma jiro laakiin xaggooda war waayno laakiin xagga iyaga waa khasaare alxamdulillah rabbil caalamiin ma jiro ciidamaduna way sii daba galeen mareer meel yiraahdo iga soo hareen magaalada 5 kilomitir dhinaca galbeed meeshan marka aydan tagin ka hor yaa ka talinayay ayaga joogay walaal ayaga joogay 15 hore bishii hore ayay ciidamadu xeelad dagaal magaalada dib uga soo baxeen inta ka bacdina ayaga joogay oo waxa weeye magaalada gacanta ku hayay magrad 15 bishii hore ilaa iyo bishan oo maanta 17 maraysa waxa halkaasi ka talinayay ururka al-shabaab waana meel kamid ah Puntland halkaasi u noqotay waqtiga inta tira leeg inay ka maqnaato gacantiina waxaan waa urur weeye argagixisa wax fariisin lana maahan waa wax iska dhow Malaysia ciidamadu inta ay meesha ka maqnaayeen meel kale ay joogaan ayay ka howlgalayeen tabaad dagaal ayay dib uga baxayeen oo tabaad dagaal bay ahayd waxaan wax fariisin lama aha meel loogu hawaaga ma leh annaguna hadda waxaan bilownay sida ay howlgalayaan inaan uga howlgalno dagaal bari la faytina aan la qaadno ciidamada hadda meesha la wareegay xalay habeenimo ayay magaalada soo dul fariisteen ciidan lugeynaya santri ay ahaayeen waxa weeye marka walaal waa wax duurgala weeye wax meel joogana ma laha si ay u shaqeynayaan oo shaqeyno dagaal santri aan ku bilowno bari la faytina waxa weeye ciidan luga aan waxa weeye qorshuhu sida weeye dawladdu sida ayaa hadda waxa weeye nimanka loogu howlgalaya waxa dhacday ururka al-shabaab ay ka talinayeen muddo dhan bil sida taariikhda ku xusan ilaa iyo markay qabsadeen inta ay ka soo wareegtay ciidanka ma qabsan meesha ciidanka saas ka baxay ma qabsan waxa weeye dagaal kuma ay qabsan ciidamada sida xeerada dagaal uga baxay meesha wax dagaal ay ka qabsadeen ma jiro waa ka soo galeen weeye ciidanku hadii ay ka baxeen meeshan ma waxay uga baxeen bulshadii xagee ku ogaayeen hadii ay idinku aad xeelad dagaal uga baxdeen meesha ku noolay bulshadii walaal goobaha ay ku sugnaayeen ayay ciidamada ku wajinayeen oo waxa weeye hadda goobtan joogno goobaha marka ay kaga haleysanaayeen bulshadiina waxa weeye way fiican tahay waan nabad qabtaa xaaladda magaalada hadda waa okay weeye waayahay hadda dagaal ayaa idin dhex maray wax khasaare ayna nama soo gaarin ayaa tiri annaga dhankayaga iyaga ma jiraan wax ahaanti gaadiid oo aad ka qabateen ama wax uba aad ka qabateen gaadiid ma isticmaalaan niman duur oo tunka wax ku wata weeye gaadiid ma isticmaalaan qararka iyo waxa weeye dhulka dawladda golis oo wadalaanta ayay ku jiraan wax gaadiid aan ka qaban annaga ma jiro mana isticmaalaan wax khasaare oo hadeer ayaga gaareen annagu hadeer aan ku sheegi karo ma jiro hadii si waagan doona hadii waayahay afurur waayadii ugu dambeysay ka bax aan soo galay bay ahayd ma sheekadii ka bax aan soo galeeday bay ku soconaysaa oo idinkana mar baad leedihiin xeelad dagaal baan ka guranay iyaguna markooda bay soo galayaan oo leeyihiin waanu ka cayrsanay wala ma dhici doonto taasi ma jirto dagaalkana sidii u bilowday weeye ciribtirkoodii ayaan hadda ku hawl jirnaa insha Allah dagaalkuna waa sii soconayaa qawaariista dadka shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ku hayana waxa weeye tilaabaad ayaa laga qaadi doonaa ciidamada sida ay brushka u bilaabaan weeye inta ay ka maqnaayeen dib u habeyn iyo xeelad dagaal ayay ku maqnaayeen insha Allah wana la guuleysanayaa walaal ma jiraan in caqabado soo wajahay haatan bulshada halkaasi ku noolay ilaa hadeer ma hayno laakiin waa inuu caado dadka shacabka inay dhibaateeyaan inay waxa weeye barakaciyaan inay qaraxiyo ku xiraan hadda ka hor bay ku xireen qaraxiyo dad shacab dhibaato badan ka soo gaadhay baqaray gubeen oo dad shacab ay lahaayeen dhibaatada waa iyaga waa caado weeye waa dhici ka dhaal laakiin hadeer ma hayno waxa hadeer muuqdo aan ku sheegi karo oo waxa weeye hadda aanu aragnay ma jiro dagaalka ciidanka Puntland iyo ururka al-shabaab goorma ayuu bilowday dagaalku muddo waa socday dagaalku waa bilowday muddo ilaa 2010 waa socday dagaal xalay deegaanada aad ka qabsateen imisa saac ayuu ka bilowday dagaalku la saakay buu ahaa min subaxdii hore heertii waa bari ciidamada deegaanka Afurur wajahooyin kala gedisan uga soo dageen wax yar oo ilaalooyin ah la xaray bay ka baxeen oo ka harareen ilaalooyin meel
furfur buraa saarnaaba xasku tuurtuuray dagaal saas ma ahayn dagaal kula magrad marka walaal qalqalib baa ku dhacay wayna carareen goobihiina way ka baxeen ciidanku waa sii daba joogay waxa weeye laba saac baa la daba joogay haddana ciidamada saldhigii magaalada ayuu gacanta ku hayaa oo ku sugan yahay fariisimo ka samaystay xaaladda iyo jawgana walaal okay wey haatan maxaa idinka qorshaysan la dagaalanka ururka al-shabaab ee Puntland idinka ciidan ahaan waxa walaal noo qorshaysan ka qorshe cad weeye waa mid weligiiba jiray waa ciribtirka iyo la dagaalanka kooxaha awaarista al-shabaab ee dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku haya ilaa intaan ka dhiganayna waa wadayna oo waxa weeye ka ciribtirayna